السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها وحن ربعين سوق بيو. أبو حنيفة هو يدي سيدي وتربيسي، إمام مالك هو يدي سيدي وتربيسي، إمام الشافعي هو يدي سيدي وتربيسي، إمام أحمد بن حنبل هو يدي سيدي وتربيسي. يدور كودي أي كلها هايين سو صارت دولة إلى أي إمامية كنقطة وأفرت المذاهب أما أفرت المذهبون لهنو أفرتها شيخ هو ينكود قابكي وصو صارت مركب تاريخ أهان ومجيدو لكن وحان أجيدا جانب التربوي قفك وين وناقيسة إيا قفك يرنا علاقة كالنحيسي وهذا هدو الروح في عين المهيسن إنو في عنادة اللور رجينيا هذا أبو حنيفة ووينا إمامية أفرطا وحو رشا أبو حنيفة تاريخ الهجر ومركة سديتنكي وحونا لنتي تاريخ الهجر بقول إيا كونتون مركة هيد بو أبو حنيفة يو لنتي وحالو رنجري النعمان ابن ثابت الكوفي أيال الأورنجري وأنا إمامك أئمة أفرتا أوجه الريو ود ويناوي نن علمك بحر كوا إمام الشافعي مركال وحول قف كير ربا إنه علمك بحر بط كن نقضه وحول نقنيا عرور أما عيال بو أبو حنيفة أكتيس كن نقنيا هذا بقى أبو حنيفة هو يدي بل أنك هذا الله هو يدي أبيه سوق جرسدي أبيه ودلنيرة أو طالب العلم أو مساجد كجرا وحبرت قيس فقيرنا كذا شيء جاجنا آذو هاي سبب جري وذا كبحي كدبنا بير بردح جلي يسوق جاجسين بربيرتن هذا هالحبو تفاحة كعنتو وهالحبو أبل محد باتو كجرا أو نفط هذا كعلي سجاجد إسكجبيسو جوان كاسو قاتو هالحبو أبل أما تفاحة وكعني كدبنا وسويدية وسيد قف كستو مؤمن ويا هتو شيء حرام وطابتو والولي وحير ما شيء أنا لقوا إدمين بعض عنتي beerta ninkii lahaa buu raadiyey kadibna wuu helay wuxuu yiri niyo halka xabbe ee tufaaxa baan ka cunay ee cafi wuxuu yiri ku cafin maayo qiyaamada ayaan ku haystaa oo ku fadhiya kadib Abu Hanifa muusan arintii ma qancin wuxuu yiri niyo beerta aan kaaga shaqeeyo lacag waxa rabta aan ku siiyo arinta wax walba igu saamixi karta waa sameynaya odaygu waa iskaga tagay gurigiisa galay Abu Hanifa albaabku u fadhiistay markuu soo baxay casarkii salaada casar buu yiri waxaan wali ku fadhiyaa inaad cafido oo saamaxdo wuxuu waan ku cafinayaa bisharti hal qodob baan kugu cafinayaa gabadhayda guursanaysa Abu Hanifa waa qoslayba wuxuu nin faqiir ah miskiin ah gabar la yiri guurso maxaa ku jaban buu waaye waa guursanaya laakiin wuxuu bisharti gabadhu way indhalaadahay way dhagalaadahay ma hadasho lugahana way laadahay oo ma socoto Abu Hanifa musiibo labaad baa ku dhacday arintii buu hadana ka walwalay waan ka soo fikiri buu yiri finalna wuxuu go'aan gaaray waayahay buu yiri aniga mar hadii la cafinayo oo qiyaamada aan tufaax la iihaysani xabadka abalka gabadha waa guursanaya arintii baa la isku waafaqay wuxuu maalinta khamiista ay imow gabadhii buu u meheriyay بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير كدبنا قولكي قبل جوجتي بو جليي اسagoo aad u walwalaya kadibna wuxuu ugu tagay gabadh aad iyo aad u sharaf badan oo aad iyo aad u qurux badan oo quruxda dumar lagu sheego oo dhan labu ugu tagay kadibna way soo istaagtay waxay tiri assalaamu alayka ya zawji inta salaantay waliba gacanta ay ka shumisay wuu yaabay gabadhan way soconaysaa gabadhii loo sheegay ma soconayn gabadhan wax way aragtaa gabadhii wax ma arkaynin gabadhan wax way maqashaa tii wax ma maqlaynin warsee wuxuu jiraa kadib markay artay gabadhii ninkii oo walwalshan baa waxay ku tiri niyo aan war ku siiyo aabay wuxuu ku yiri gabadhu wax ma aragto xaaraanta ma arko aabay wuxuu ku yiri gabadhu ma hadasho waxa xun oo on fiicnayn kuma hadlo aabay wuxuu ku yiri gabadhu way dhagalaadahay ma maqlo wax xaaraana ma maqlo wuxuu ku yiri ma socoto xaaraan waligay uma soconin ayuu kadib ayuu imaam Abu Hanifa farxay habeenka Ilaahi subhanahu wa ta'ala baa u barakeeyay waxaana u calool galay wiilkaasina wuxuu ahaa Abu Hanifa نعمان ابن ثابت الكوفي بهبينك أقل قلي وحنا هاويلك بركيسن هذا بقى إماذا مركعات في رسان وحاويه ينكود بان أركد دونا تاريخ لوضا إن شاء الله تعالى إمام شافعي وحلص عندنا إمام مالك يا إمام شافعي يا إمام أحمد بن حنبل وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.